بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan daawadayaal waayaan la geedii afraxoodin la socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad wadanka TV ku daawad doontaana waxa kamid ah nidaamka Sacuudiga oo muujinaya nacayb uu u qaba islaamka iyo qadiyada Falastiin istiraatiijiyad mangaamnimaha uu banaanka la yimid dambigee loo dilay gaari caasi ah oo ay 20 qof saarneed oo qof qurihi ka badbaaday waxay iska soo dhigtay qof wiilka ay dishay u sheegaysa geerida eedadii wacaal ku soo kordhay gabadhii ninka dishay Minnesota waxay murugtay markii ay yimaadeen Soomaalida madow nin Sacuudiyana oo si xun u aflagaadeeyay Soomaalida booliiska New York oo sameeyay arrin kale oo shacabka ka sii careysiisay golaha ammaanka oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka dalbaday 6 qodob dibadbaxayaasha Mareykanka oo iloobay hal arrin oo naftooda halis ku ah qaar ka mid ah dad laga soo celiyay Sacuudiga oo arrin yaab leh lagu arkay dawladda federaalka oo furaysa duulimaadyada iyo arrimo cusub oo la soo rogay dawladda oo laba magaalo gaarsiisay qalab loogu talagalay cudurka corona qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wadanka ku daawad doontaan waa kooda June 2020 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program baleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tana hanaga aan ku bilaaba marka hore warbixin dhawaan lagu baahiyay hilinka Saudi 24 ayaa iqwaanka ku eedeeyay in ay taageeraan gooni u goosadka koonfurta Yemen tii ay jirto in la wada og yahay Imaaraadka oo Sacuudiga olog leeyahay in uu taageero isla markaana aasaasay dhanka Falastiin waxa kooxda Hamas oo u dagaalamaysa dadkeeda ay saxaafadda Sacuudigu ku tilmaamtay urur argagixiso ah iyagoo ku eedeeyay in ay afduub ku haystaan marinka Gaza saxaafadda Sacuudiga oo aan ahayn mid madax bannaan ayaa ku shaqeysa siyaasadda boqortooyada tirada yar ee dalkaasi xukunta waxa ayna baahaysaa qoraallo aflaam warar iyo barnaamijyo ay dejisay isla boqortooyadu waxa baryahan ku cusub waa Sacuudiga oo muujinaya nacayb ku aadan muslimiinta kale iyo marin habaabin ku aadan qadiyada ay muslimiintu leeyihiin Sacuudi Carabiya ayaa kaalinta 170aad ugu jirta caalamka iyadoo ay dunida oo dhan ku yaalaan 10 dal oo qur ah oo kaga liita dhanka madax bannaanida saxaafadda markii la eega qiimeynta sanadkan 2020 Sacuudiga ayaa tan iyo markii uu gacanta ku dhigay MPS waxa uu dabaqayaa siyaasad gabi dhacleynaysa oo aan la saadaali karin ama xitaa la fahmi karin ujeedada istiraatiijiga ee ku jirta markii si caqli iyo cilmi xambaarsan loo lafaguro tusaale madaxweynaha Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan oo mar lagu tilmaamayay olog la isku halayn karo haatan waa la sheedaamiyay oo waxa lagu sheegay khaliifka Cusmaaniyiinta ah oo argagixinaya gobolka si uu isagu isugu dhiibo taliska Asad oo ay mar ku hubeenayeen kooxaha xagjirka ah ee bilaa ujeedka ah si xilka looga tuuro haatan waxa loo arkaa nin la heshiin karo si loogu daro isbahaysi ka dhanaa Turkiga taasoo muujinaysa isburin fara badan oo sidoo kale ka socda Twitterka sida kalitalisyo badan oo ku dul fadhiya shucuubta qaliishka wuxuu nidaamka Sacuudiga cadowgiisa koowaad ee istiraatiijiga u arkaa wax kasta oo aragti islaam xambaarsan waana sababta uu u maalgeliyay afgambigii dhiigu ku daatay ee 2013 ka dhacay Masar sidoo kale waa sababta ay isku dhacsan yihiin Qatar oo iyadu ah dalka qura ee qaliijka ee la safatay madaxweyne Mursigii silaca loo dilay markii aad daawato hilinka Sacuudigu leeyahay ee Al Arabiya waxa dareemaysaa sida ay ugu dhagan tahay islaamka gaar ahaan masaajidada iyo hay'aadka diimeed iskuulada islaamad xaafiyada muslimiinta ee ku yaala galbeedka ayay u sawiraan xagjir iyo waliba wax la jira waxa xitaa nidaamyada Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo wixii la mid ah lagu eedeeyay in ay maalgeliyaan kooxaha xagjirka ee midigta fog ee muslimiinta nacayb si nolosha loogu adkeeyo muslimiinta galbeedka waa istiraatiijiyad raqiis ah oo kaliya ku salaysan cilmi dherer dhanka kursiga ah balse muddo aan fogeen iyaga laftooda la degi doonta maadaama dadka ay xukumayaan ay muslimiin yihiin Al Arabiya waxay joogista muslimiinta ee galbeedka ku rinjiyeynaysaa inay yihiin kuwa xiriir la leh argagixiso iyadoo la sheegay in nidaamka Sacuudiga uu islaamku ka neceb yahay xitaa kooxaha cunsuriga ee Berlin ama Paris siyaasadda maangaamnimada ku dhisan ee meel dhow aragga ah ee Sacuudiga ayaa waxa ay dhabarka u jeedisay Falastiiniyiinta iyadoo u guuxday dhanka Donald Trump oo cidda qura ee wax ka dhageysata dunida oo idil qaliijka uu ka helay ku tilmaamay heshiiskii qarniga kaasoo si buuran oo ballaaran loogu sadburinaya Yuhuudda laguna aasay xaq reer Falastiin dacaayadda uu faafinaya nidaamka Sacuudiga ayaa sidoo kale kicinaysa wadaniyad macmal ah oo aan ku dhisnayn dareen shacbaawi ah taasoo
dadka ku dalqaminaysa halkudhegyo ay ka mid yihiin Sacuudiga waxaa leh Sacuudiyiinta iyo Falastiin ma aha qadiyadeyda, taasoo ay la socoto eedo la iska saaraya Falastiiniyiinta iyo waxa ay u taagan yihiin. xilliyadii Ramadaanka waxaa aad loo dareemiyay in hilinada Sacuudiga laga saaray dareemayaal taxana ah oo doqoni garato ah oo lagu xayeysiinayo xiriir lala yeesho dalka Israa'iil, iyadoo la dheelsanayo waajibaadyo ay ka mid yihiin qadiyadda Falastiin iyo qiyamka Qudusta barakeysan iyo Masjidul Aqsa. siyaasadan caatada ah ee aan caqliga badan xambaarsaneen ee sheedaameynaysa Falastiin iyo muslimiinta kale isla markaana sheekeynaysa Israa'iil ayaa lagu tilmaamay sidii qasri bacaada oo caano badani dhiiqi doonin. diidmada Sacuudiga iyo dalalka khaliijka oo dusha uga taagan in ay dunida muslimka yeelato nidaam furan oo ay xor u yihiin dabuubtooda iyo weliba damuuxaadkooda ayay waxay burburisay muuqaalkii iyo sumcaddii ay ku lahaayeen dunida muslimka oo iminka looga arka nidaamyo aragti gaaban oo wax kasta kursi dartii u samayn kara karaamo iyo kas kalena aan lahayn, sidaas darteedna ay halis ku yihiin naftooda iyo tan shacabka ay u taliyaan. dhanka kaleetana dad 6 qofood ka badan oo wada rayid ah ayaa ku dhintay halka ay qaar kalena si xun u dhaawacmeen kadib markii gaari caasi ah oo ay saarnaayeen qarax lagula eegtay deegaanka Xaawo Cabdi oo u dhaxeeya magaalada Muqdisho iyo Afgooye. qaraxa dhacay oo lagu sheegay inuu ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa la kacay gaariga sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha deegaanka ceelasha biyaha ee la hadlay warbaahinta. wuxuu sheegay in gaariga la qarxiyay uu ka mid ahaa gawaari u socotay degmada Walaweyn, isagoo sheegay in ay hal gabar oo qurihii ay ka badbaaday qaraxa halka intii kale ay isugu jiraan wax dhintay iyo waliba wax si xun u dhaawacmay. gudoonka deegaanka ceelasha biyaha ayaa sidoo kale sheegay in uu xog ka helay in guud ahaan ay gaariga la socdeen 20 qofood, taasoo muujinaysa qarada khasaaraha gaaray dadka rayidka ee aan waxba galabsan. falkan oo ah dambi dagaal oo cad ayaysan jirin cid sheegatay, walow ay badanaa ay meelaha siminooyinka ay dhigaan kooxda arxanka daran ee ugus oo marar badani waxyeelo u geysta dadka rayidka oo aan waxba galabsan. geesa kaleetana dhacda murugo leh ayaa ka dhacday xaafadda Raadeerka ee degmada Daynile kadib markii uu dagaal qoys uu ku dhamaaday khasaare nafeed. gudoomiye waaxeedkii halgan Cabdiqaadir Maxamed Siicow ayaa u geeriyooday dhaawac culus oo ay xaaskiisu gaarsiisay oo wadnaha mindi uga muday isagoo dhintay isla markii la geeyay isbitaalka. haddaba xaaskiisii labaad oo la yiraahdo Fahme Axmed Maxamed ayaa haatan ka hadashay waxa dhacay markii dhankeeda laga eego. waxay Fahme sheegtay in uu marxuumka gurigeeda joogay iyadoo uu dilku ka dhacay iridda guriga oo ay ku sugaysay xaaska kale ee dili doonta. hadallo yaryar ayay isdhaafsadeen kadibna Torrey ayay la soo baxday oo ay ku dhufatay ayay tiri Fahme oo u warantay warbaahinta. Fahme ayaa sheegtay in aanu fiicneen xiriirka ay la lahayd xaaska kale, sida daraadeedna aysan gurigeeda imaan jirin, balse ay shalay ku soo cidgashay arrin ku saabsan islaan eedda u ahayd marxuumka oo dhimatay iyadoo iska dhigtay in ninkeeda u raadinaysa arrinta darteed. markii ay aragtay waxaan maqlay iyadoo oo leh labadeena maanta qof ayaa dhimanaya iyo isaga oo ehbinaya, xilligaasna wax yada oo ay sidatay ma jirin mana la filaynin, balse markii dambe waxaan arkay ninkii oo dhiig ka socdo ayay raacisay Fahme oo sheegtay in isaga oo garaaba isbitaalka loola cararay oo halkaasi ku nafbaxay. dhanka kaleetana waxaa magaalada Minneapolis oo ay Soomaalidu ku badan tahay ka bilowday rabshado ku baahay magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka kadib markii jilib lagu ceejiyay muwaadin madow ah oo la oran jiray George Floyd, waxaana rabshadaha ka dhex muuqda Soomaalida Mareykanka. guud ahaanba dadka madowga ah gaar ahaan Soomaalida oo sida qaabka uu qoraalka u dhigay laga dhadhansan karo inuu iyaga u dan lahaa bilowgaba. ninkan ayaa dadka madowga ah oo ku sheegay inay cawaanimadooda xad ka dhaaftay. wuxuu ka yara afeeftay dilka Floyd oo ay muuqatay inuusan laftiisa jacayl badani u qabin, ayaa sheegay in ay madowgu heleen fursad ay wax ku qaribaan. wuxuu sheegay inuu laftiisa uu 7 sanadood ku noolaa gobolka Minnesota, isla markaana ay dadka asalka oo ula jeeda Yurubta cad ee ka soo haajiray Scandinavia ay yihiin dad aad u macaan si ka duwan sida ay qabto taariikhda oo dadka asalka u aragta dadka reer galbeedka u yaqaanaan hindida cascas, walow aysan caseen hindina aan ahayn. yeelkadeeday markii ay soo degeen Soomaalida madow ayuu yiri Al-Raajixi oo u dhaadhacaya dulucda warkiisa, kuwaas oo ay matashay Ilhaan Cumar. wuxuu dambiga u faafay si weyn ayuu yiri. hadalka ninkan ayaa xitaa ka hor imaanaya xeerka u degsan Twitterka maadaama uu ka buuxo isir nacayb, aflagaado,
jamcinta siji gaara xugmintooda iyo weliba midabta koor ninkan ayaa aad u weerara Soomaalida dadka madow iyo weliba gaar ahaan Ilhaan Cumar isagoo aad taageero ugu muujiya Donald Trump iyo dadka cadaanka ee cunsuriga ah geesa kaleetana gawaarida booliska New York ayaa kas dadkii u dhex jeexay xilli ay dadku isugu soo baxeen dibadbaxyo ruuxaya Mareykanka kadib dilkii ninkii reer Minnesota ee George Floyd oo nin boolisi jilibka ku ceejiyay muuqaal naxdin badan leh oo ay malaayiin dad daawadeen ayaa keenay in ay dadku dibadbaxyo dhigaan waxaase New York ka dhacay arrin kale oo muujinaysa mas'uuliyad darro kadib markii ay gawaari nooca Fordka ah ay dhex galeen dad jidka dhigtay xanibaado waxaa la arkayay dadka oo wax ku tuuriyeenaya hal gaari balse waxa uu sugayay mid kale isagoo markii uu u yimid mar qura ku sheelreeyay xanibaadii ay dadku jidka dhigteen waxa deeta dhinacyada u kala baxsaday dadkii oo ay Baqdin cusub gashay kaaga daran booliiska New York ayaa dhaqankan u qiilsameeyay iyagoo sheegay in ay arkeen boorse holcaysa oo dhankooda loo soo tuuray balse Alexandria Ocasio oo magaalada matasha ayaa madaxda New York ka codsatay in sharciga la horkeeno raggii falkan ku kacay barasaabka New York Bill de Blasio ayaa sheegay baaritaan buuxa arintan in lagu sameyn doono balse waxa uu sheegay in dadku ay ku qaldan yihiin in ay tuuriyaan booliiska lama sheegin cid dhaawac daran soo gaartay dhinaca kaleetana golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka in ay dib u bilaabaan wada hadalla isla markaana ay hormariyaan wada shaqayntooda qaraar ka soo baxay qaramada midoobay oo tirsigiisu yahay 250 ayaa hoosta looga xariiqay in wada shaqayn buuxda oo dhinacyada dhexmarta ay hormarin doonto arrimaha muhiimka u ah qaranka sida fulinta qorshaha amniga qaran isbeddelada maaliyadeed dib u eegista dastuurka iyo in doorashooyinka dalka ay waqtigooda ku dhacaan geesta kaleetana saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa ka digay in cudurka corona oo mar kale laba kacleyn kara kadib banaanbaxyo ka dhacay qeybo badan oo Mareykanka ah oo ka dhashay dilkii loo geystay George Floyd oo ah nin u dhashay bulshada madow kaasoo ku baxay gacanta ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis dibadbaxayaasha ayaa maalmihii la soo dhaafay lagu arkay magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka iyagoo qaarkood ay maasgarooyin xirnaayeen halka qaarna aysan xirneen kala fogaanshaha dadka ayaa noqotay mid aan macquul ahayn in ay dadku fuliyaan xilliga dibadbaxyadu ay socdeen gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AP in uu ka walwalsan yahay xaaladan waxa uu sheegay in ay muuqato in dadku ay iloobeen in ay weli gobolku bartanka ugu jira xaalad caafimaad oo degdeg ah ee uu keenay cudurka safmarka ee corona isagoo xusay in isbitaaladu ay weli la tacaalayaan bukaano badan dhanka kale tana waxa garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho soo caga dhigatay dayuuradii saddexaad oo dad Soomaaliyeed oo laga soo qaaday dalka Sacuudiga wada dayuuradan ayaa siday 126 qofood oo ka koobna 22 dumar ah iyo 102 rag ah waxa ayna ka soo duushay magaalada Jeddah oo Soomaalidu ay ku badan tahay muwaadiniintan laga soo celiyay Sacuudiga ayaa u badan caruur iyo haween waxaana la sheegay in badankooda ay xabsiyo ku jireen muddo bila ah lagana soo kala qabtay magaalooyinka dalkaasi dadka la keenay qaarkood ayaa socday kabalaan waxaana dad badan ka yaabisay sababta mas'uuliyiinta xabsiyada Sacuudiga ay xitaa kaba ay dayuurada ay ku raacaan ugu qoori waayeen maxaabiisan iyagoo eegaya islaamnimada guddiga ay dawladda Soomaaliya u xil saartay soo celinta dadkaasi waxa ay sheegeen in 3 doolimaad loo qeybiyay dadka laga soo daabulay dalka Sacuudiga waxaana la keenay qaybtii ugu dambeysay waxayna guud ahaan gaarayaan ku dhawaad 400 ruux geesta kaleetana dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay in dib loo furayo duulimaadyadii u kala gooshi jiray garoonka dayuuradaha aadan cad iyo gobolada dalka kulama isdaba joog ah oo maalmihii la soo dhaafay u socday guddiga shirkadaha diyaaradaha Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaadiidka iyo cirka dhulka dawladda Soomaaliya wasaaradda caafimaadka wasaaradda ganacsiga hay'adaha duulista hawada Soomaaliyeed maamulka garoonka shirkadda Fafri hay'adda socdaalka iyo waliba hay'adaha amniga qaranka ayaa waxa la isku raacay in maalinka Arbacada ah oo ku beegan 3 Juun 2020 dib loo furo garoonka si kumeel gaar ah oo ay howlgali karaan duulimaadyada gudaha ah iyadoo la ilaalinayo badqabka dadka rakaabka ah si looga feejignaado cudurka corona oo markii horeba sababay in la xiro
ugu dambeyn mas'uuliyiin ka socota wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qalab caafimaad iyo daawooyin gaarsiiyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo magaalada Afmadow ee Jubbaland si sare loogu qaado dadaalada lagula tacaalaya xanuunka corona. qalabka caafimaad ee la geeyay magaalada Gaalkacyo oo lagu wareejiyay mas'uuliyiin ka socota Puntland iyo Galmudug ayaa qayb ka ah dadaalada dowladda federaalku ay wado ee ka hortagaya cudurka corona. qodobkaasna waxa uu u dambeeyaa warkii wadanka. intii aynu ka gaarayna warka yaga xiga waxa aan kaga tageynaa guul iyo gobonimo.